Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabi meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idiin wadaa waa maxay wax ku keeni kara cuncunka xibinta taranka, maxaa ku keeni kara haddii aad gabar aad tahay. Cuncunkani waxyaalo badan baa keeni kara, laakiin haddaad isku aragtid calaamadahan mar walba isku day sidii aad dhakhtarkaaga aad kula xiriiri lahayd. calaamadahani waxaa ka mid ah cuncun hoose in aad dareentid. waxaa kale aad dareemi kartaa waxyaalo loo yaqaano blisterska ama soneska. blisterska ama soneska waxaa waaye in meeshii barar yar aad ka dareentid iyo meel biyo soo yara galayaan camal aad ka dareentid. galna waxyaalaha ku keenaya cuncunkani ama cudurooyinka ku keeni kara cuncunkani maxaa ka mid ah. kow waxaa waaye waxa loo yaqaano irritantska waxaa ka mid ah wax walba oo hoostaasi haddaad ku dhaqdid ama carfiso ama wax walba soo carfaya. waxaa ka mid ah sidii waxyaalaha hoosta lagu dhaqo carafka badan leh, kareemada ama waxyaala sidaas oo soo carfa. sheyga labaad waxaa waaye saabuumaha soo carfaya haddii aad hoostaasi aad ku dhaqdid ayagana dhibaato badan bay ku keenaan. shaambuyaasha oo carafka leh ayagana dhibaatooyin badan bay ku keenaan. meeshaasi mar walba waxaa looga tirgalay xibinta taranka, mar walba waxaa looga tirgalay inaad waxba aad ku dhaqo labada dhinac iyo dhinacayaasha soydil waad dhaqi kartaa, laakiin gudahaasi ma dhaqi kartid oo wax carfaya kuma dhaqi kartid. sheyga labaad waxaa waaye wax loo yaqaano yeast infectionka. fungalkan wuxuu isu bedeli karaa infection, caabuq buu kugu noqoni karaa. caabuq hadduu kugu noqdo marka muxuu ku keenayaa overgrowth, waxyaala lalahay baa ku dhacaya infectionkani. caabuqani marka waxaa ku dhacaya overgrowth hadduu ku dhaco yeastigani waxaa waaye wuxuu kugu ridayaa in uu calaamado badan aad dareentid oo dhibkan uu ku keeno, cuncunkan uu ku keeno. marka yeastigan inuu ku haayo yeast infectionkan, caabuqan oo yeastiga inuu ku haayo sideed ku garanaysaa. waxaa kamid ah sticky oo discharge ama wuxuu leeyahay dhacaan oo very sticky ah oo dhegruur ah oo dhadhegayo. mid kale waxaa waaye waa in cuncunkaas uu ku keenaya haddii kaadadii lagaa baarana waa lagu arkaya yeast infectionkii baa lagu arkaya. marka sidee lagu daaweynaya yeast infectionkani? daawooyin baa jiro, kareemo baa jiro oo ama saboostooyin oo hoostaas iyo xibinta taranka aad gelinaysid baa jirto. sheyga saddexaad ku keeni kara cuncunkaas hoose waxaa waaye waxa loo yaqaano bacterial vaginosiska. bacterial vaginosiska waxaa waaye waxyaalaha sida aan kasoo hadlay camal yeastiga asagana waa sidaas oo kale. lactobacilli wax la dhahayo baa jirto oo laga helo hoostaasi oo organism caadi ah. microfloraga oo hoose oo caadiga ah gabadha markii gabar walba ay leedahay waxaa waaye normal flora. normal floraga waxaa waaye organism bahalo hoostaas laga hela baa jirto, organismo cayayaan ah. bahaladan qof walba uu qabaa, dhib uma keenayo. laakiin haddii overgrowthka uu ku dhaco sida yeast infectionka camal waxaa kugu dhacaya in ay meeshii ay ku bataan oo dhibaato ay keenaan. yeastigan iyo bacterial vaginosiskan badi waxay ku imaadaan pH kaaga oo hoos u dhaca oo acidic noqdo ama pH kaaga oo isbedelo oo alkaline isu bedelo. waxaa waaye marka calaamadaha oo bacterial vaginosiska calaamadihiis waxaa kamid ah dhacaan inaad dareentid, cuncun aad dareentid. waxaa kale aad dareemaysaa shiir oo sidii kalluunka camal, shirka kalluunka camal ah hoostaas inaad ka dareentid. whitish discharge waxa la dhahayo buu la socdaa, discharge dhacaan oo oo very white oo cad soo idin. sheyga laakiin lagu garto oo mar walba lagu garto waxaa waaye dhacaankaasi shirkiisi oo sida kalluunka ama malayga camal usoo shiirayo oo hoostaasi ah. marka mar walba haddaad isku aragtid daawadiis way fududahay, kan wax dhib weynna kuma keenayo. daawadiis waxaa flagelka ama metronidazole wax loo yaqaano. sheyga afraad ku keeni kara cuncunka hoos waxaa waaye waxa loo yaqaano sexually transmitted infectionka. transmitted infection diseaseka waxaa waaye cudurada oo galmada lagu kala qaado. cuduradani waxaa kamid ah waxa loo yaqaano chlamydiaga, sidoo kale gonorrheaga oo jabtada ah, sidoo kale syphiliska ama syphilitada iyo trichomoniasis wax loo yaqaano. cuduradani mar walba qofku wuxuu ka qaadi karaa in galmada ay kusoo maraan. cuduradani waxay ku keenayaan cuncunkaas oo xibinta taranka ah. cuduradani kuwa qaarkood waxaad isku arkeysaa in dhacaan oo hoostaasi dhacaan oo greenish ah sidii cagaar ah inaad hoostaasi aad isku aragtid.
intaas in ka badan cuncunkaas la socdo waxay kala isku arkaysaa kaadada oo maaragtay zaa'id ah noqoto si in ka badan ah mar walba isku day haddii aad maaragtay cuncunkan aad isku aragtid sidii aad iskaga baari lahayd cudurrada galmada la iskaga qaado sheyga kale waxaa waaye ku keenayo cuncunkaasi hoose ama cuncunka xibinta taranka vaginal itching loo yaqaano waxaa waaye wax la yiraahdo skin diseaseska waxaa waaye cudurrada oo maqaarka ku dhaca sidoo maaragtay waxaa kamid ah cuduradani eczemada waxaa waaye cuncun oo ama atopic dermatitis wax loo yaqaano waa form of maaragtay skin disease ah skin disease bay ka tirsan yihiin waxay ku keenayaan cuncun jirka oo idil inaad ka dareentid ilaa iyo hoostaasi skin disease-kan daaweyn bay leeyihiin sidoo kale iska fiiri ayagana maaragtay mar walba aad isku aragtid dhibka jirka oo idil muu ka socdaa mise hoostaasi keliya yaasha kale oo maaragtay iska yaryar oo dhibaatooyinka ku keena waxaa kamid ah gabadhii haddii maaragtay dhalmo goosato waxay isku arkaysaa inay maaragtay estrogenki iyo progesteronki baa ka dhacaya waqtigan markay gaarto sidoo kale maaragtay gabadha markay soo qaangaarayso ayadana maaragtay in ay dhibkani ay la kulanto asxaabi wax soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka fadlan meel walba joogtiin channelka kiilowina subscribe like and share ka rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo